بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الشرف تلميذ كسر جوتي وحني وسلامة سلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قول صومالي قول علن كان صوماليات قولي جيسة دول مرة إن شاء الله أنت نولين أمة صوماليات أو ضمير جبهة كينيا وأركتين ساك وحلودي وحنوسو أديك ستة صوماليات أو جبهة أو عيال يير أو صوماليات وعنكحما عيال كيير إماتة ضميشة ku dhintay aniga marnam kuma farxay maanta nin sanka dhuudhi ah maanta hadoo ku dhima lahaay farxad ka weyn ay ahayd laakiin wiilasha dhintay waa wiil Soomaaliyeed taasaan ka calool xumaa dhiig Soomaaliyeed waa dad la soo adeegsaday waa dad maskaxda laga soo xaday waa jabhad oo ninka janan ahaayeen wato oo u shaqeeya Axmed Madoobe Kenya iyo dawlad dhilifkii la socdo waxa uu dambeeyay meeshaas email ka sii hooseyso hadoo ala idmo gorgor iyo haramacaas guul ayaan leeyahay waliin waan garab taaganahay waligiina dhul dhacimaysiin dalka Soomaaliyeed maanta heerkoo joogo waligiis ma soo marin maanta dalka Soomaaliyeed ciidan difaaco dhul iyo badbo waanu diyaarsan yahay cid bini aadano gorgortan ka galeyna male Kenya maanta madaafiic ay dad maata ah ilaahay au naxariistay 5 caruur ay hooyadooda hal meel ku dhintay waa la xisaabtan doona cidda soo dirtay waxa waaye Kenya iyo daba dhilifkooda iyo Axmed Madoobe ilaahay idinkiis waa la xisaabtan doona maalin ba ayaa loo xisaabtama doona Axmed Madoobe kismaayo sa ku joogeys adaa sheega doona Kenya da meesha ku hayso daba dhilifiyo Kenya meesha ku hayso waa ka bixi doona insha Allah Kenya rag alaala rag ay wadato waxaan ku duku doonaa hadoo ala idmo Nairobi markaste war markasta dulqaadkii waa naga dhamaaday Soomaali saamuna marna dulqaad dambo aan sameeyna ma jirto maanta naga bilaabo Kenya anaga waxa naga dhaxay xabad dhiigeeya inuu ugur ana diyaar u ah waana u tilaaba waana aadan naftadeyga inuu u bixiyo maal iyo naftadeeyo badiyaar ah cid bini aadan loo gorgortamaano dadka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay waqtigaan oo kale wadankeena waxa loo soo qaaday dagaal qaawan wadama shisheeyo isbahaysay dawladda Soomaaliya waa aragteen shalay waxay qabatay hub fara badan oo noocyadiis kala duwan war hubka madaafiicda waa midka kaariyash midka miinooyinka dhulka ilaakum gantaalada cirka diyaaradaha war wax kaste ayaa la qabtay waan la soo bandhiga wasiirka wuu ka hadlay dadka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay inuu gacmaha isqabsadaan waqtigaan oo kaleente gacanna doorashaan ku galeynaa gacanna dagaalan ku galeynaa wadankan ku difaacay cid bini aadan isku haysta mal cid bini aadan oo ugu baqaynana male meel kastaan joogno diyaar ayaa una inuu wadankeena difaaco cid bini aadan oo ugu gorgortamayna ma jirta dadka Soomaaliyeed gacmaha isqabsada war dhulkiina difaacda war maanta boqolkiiba 70 waa dhalinyaro waa aragtaan video ba ilaahay nigu dhaariyay bal fiirsada waxa ku hadlaa 9 wuxuu leeyahay 9 sano ayaa garabkiis taagnaa maanta waxa la soo adeegsaday saaka salaad subax war wuxuu dhahay 2 bilood telefoon ma arkin saaka salaad subax xuduudda marka imaana qoryaan oo qaybiyo maanta hubkiina gacanta ku dhigni 250 maxaabiis gacanta lagu haya waa dad la soo marhabaabiye dadkaas dhaqan cilna loo sameeyaa walaalayaal waa ka video waa ila fiirsada ilaahay nigu dhaariyay guul niyada khayr sheega burcad idin ma hayso sagaal sano ninkaan la shaqeynaya aniga guul gorgor oo isku lafti isku nolosha isku dhiigaanahay oo intuu gaari igu soo guray deegaan aqoon qarankeena waa guuleystay deegaankiina aan dadna iyo dan la ka garanayn marka farmaajo rag baatiin adigu ka jawaab هذا نحتاج له كله تو. يجي بقولة مرة. لكن هذا كل ما تبحث كل مرة. هلا أنا ما شيء كذا ساكت هذا كل مرة. أيوة عاد كسر دوشي. أنا جيفو أنا فضي الصلاة الصبح ما ساكت كذا. ما تجي كذا مقدر معكس. المسألة هذا لو الحري حلال كل شيء. وضع يعني. أيوة كل ما جبت. مية. من الشيء قبلنا إيه. ما يرى في صدود ما يوصل توصل اللي يراه. قريب فعلا هالكاي وضعي. halka leefkaana waa lagu dhuftay waxaan ku roorey adigu dadka leeynaysa dawladda Soomaaliya ee maxaanka bandhigay la sheegay oo Allah qorigan afjarka u geys miyatiin inta marka aribuna loogayo miloo boodor sidii intina la soo wado dhabada soo socday macal shacabka aan soo dhaxmareen Soomaaliya way israacday
waxaan diyaar u waa aragteen walaalayaal Soomaaliyeed meel kasta ay joogtiin faacada dalkiina anaga intaas cadow kasto isoo bahaysto waa ku filannahay marna gorgortan kama galeeyni hal taaka kamid ah ama maleeshiyaad soo adeegso Soomaaliyeed daba dhilaf soo adeegso ama adiga wajika ma waxa u baahneenba inoo Kenya toos noogu imaado san kadhuudi inoo noo imaada rabnay mudankiisa marsiilahay maanta laakiin ciyaalkeen naga soo hormaray waa nasiib daro war dadka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed cadow yooni adeegsan war dhulkiina difaacda cadowgaas dantood waa ogtiin Kenya dhibaatada nagu hayso dhulkeena Soomaaliyeed nagu haysta barigeena nagu haysta badeena nagu haysta walaalayaal hal meel aan ka soo wada jeesano war dadka dalkooda iyo dalkooda difaacay cir iyo dhul Ilaahay anaga dhigo war waxa loo baahan yahay ciidanka Soomaaliyeed inoo garab taagantay war xiil iyo hoo dheef iyo dhibaataba inoo la garab taaganaatay markasta walaalayaal waxa loo baahan yahay inoo difaacataan dalkiina guul ayaa rajaya Soomaali wadankeena difaaca ayaa u nahay bye scrap lag noo saar walaalayaal wax kasto cusub noo soo xariira diyaar ayaa u nahay inoo niisoo taban cid bini aadan oo kala baqayna male markastana diyaar una wadankeena inoo u dhimano haddana waa u taagnaa doona insha Allah dadka Soomaaliyeed ciidanka Soomaaliyeed xooga ala garab istaago meel kasta joogtiin dumar waayeel war dhalinyaro war kuligiina garab istaaga guul ayaa u rajaya Soomaali guul